aylo laba goor tuskiralay kullay garatay heesta iyo fanaaniintii ku luuqayn jirtayba balse waa kuma ninka aad imika codkiisa ku maqlaysa heestan iyo heeso aad u tiro badan oo kaleba dhegayste oo marley aad jeceshahay badankooda isagaa la xamiyey oo sameeyey codka lagu qaadayo لما يلينو تسمى هيامي يحيق جوبو heestan markii ay soo baxaysay maxamed saleebaan tubeec isaga ayaa xifdisiiyey waayo isaga ayaa laxanka sameeyey xasan samriye afrax oo ku magac dheer xasan grade waxa uu ka mid yahay Soomaali fankeeda tiirarka waaweyn ee uu ku soo taagnaa muddo dheer heesaha uu codeeyay isaga ayaa inooga sheekayn doona qaar ka mid ah balse horta ha inoo sharaxo naanaysta uu ku caanamaalay ee grade macnaha waxay ka dhigan tahay garaad aabana xasan buu igu waqladay hooyana waxay ila baxday garaad hooyana garaad adigoo yar baan xamar tegey dabeeto asxaabtii weeridii laadameeyadii marka reer xamarkii garaad bay oqooni garaad bay igu bedeleen aad iyo aad marka xasan garaad bay iyo fankii oo meesha ku bilaabay laakiin naanaystu hooyo xasan garaad bay ahayd maya garaadka la iskama bixiyo hahee dhaqan iyo hiddo weeye moogta waa yahay waxa weeyaan anigu 9 kumaan dhalan haye 11 bilood baan ku dhashay waa yahay marka ninka nin caloosha ku garaadsaday baa garaad loo bixiyaa la iskama bixiyo horta moogta marka cilmiga magacu garaad ba uu ku yimi waa sababtaasay ahayd aabba markaa kuu bixiyey aabba xasan buu ila baxay hooyaa markaa kuu bixisay hooyaa garaadka igu yeeli jirtay iyaduna hahee xasan waxa uu ku dhashay gobollada dhexe ee Soomaaliya meel u dhow Dhuusamareeb waxaase isagoo oo yar la geeyay magaalada Muqdisho oo uu ku barbaaray halkaas ayaanu ilaa imika ku nool yahay nolosheeda sidii burburku u dhacayna xamar maalin kamaan tegin haye ilaahay baan iska tawakalay meel la yidhaah xaafad la yidhaah xamar biraa ayaan deganaa oo qiimahay meel aan la yidhaah ku taaway haye ilaahay waan ka tawakalo waxaan ku qaxana maanaysan qalisna maanaysan aniga aroortayda meeshii baan deganaya horta gurigii aan deganaa dagaalku igu bilowday ayaan caawa kaala hadlaya markaa dalka markii burburku dhacay adigu marnaba xitaa ma tuulo kalena ugamaad guurinba xamar afgooye maan gaarinba waa yahay ya hal baloog baan ku leenahay 18 guri haye adeer iyo carwo iyo baan meesha baloogka deganay haye dadkii kale dhan waa iska xarareen aniga kaligay unbaa ku ahay balooggii markaa ma waxbaa kaaga dhisan oo ma guri baa kaaga dhisan maya waa viilo oo markii horeba dhisnayd maxamed siyaad guryaha la siiyey wey maxamed siyaad imise carruura kuu jooga laba inan iyo inan haye maasha allah intay la leeyihiin orodkayga nin weyn waayo waa nairobi jiraa hahe yaro ayar marka ilaahay waa igu nabad yeelay waa caafimaad qaba saxariir kasta aan soo marnay hadda waa ka noolnahay wax kasta intii Soomaaliya aanay lahayn dawlad dhexe oo ka talisa waxa uu xasan grade soo maray marxalado adkaa oo dheef yaraa dhibna badnaa waayo shaqadii fanka ee uu baryaha qaar maal iyo maamuusba ku heli jiray muddooyinka dambe shilin iyo sharaf midna kuma qabin waxaa jirtay meel bakaaraha la yidhaahdo oo ganacsiga marka kol aad galato oo qofaad taqaano reer miyi baana yimid marka mid subaxdii meeshaan unbuu tegi jiray dabeeto wixii aan ka soo helo ayaan guriga keeni jiray ama ha yaraadeen ama ha badnoodaan adigu la joogiyo markii cabdullaahi yuusuf kadib sheekh shariif markuu yimid ayuu inteeni fanaaniinta joogtay buu waxa u qoray mar 100 mar 50 marka nin farmaajo la yidhaah baa yimid oo
فنانينتا بقول أقرأ ها بقول $100 من كذا وايهاي تمام لا بيلانتا كل يوم hadda marka fanaaniinta dawladda Soomaaliyeed baad ka tirsan tahay bise ma yaani waa berigii baan kamid ah waa beri miyay wili walow aanan shaqooyinka hadda ay hayaan nan mooryaan aad u malayso oo berigii hore inay ciil noo qabeen annaka fanaaniintu waa weynay ayaa meesha jooga waaya marka geeskiina geliyeen inkastoo anigu dhowr hadday codi warsadaan aanu sameeyo haddii kalena aan meeshayda ka joogo magaaladayda marka ilaa imaka awoodii kolley qofku markuu waqti soo shaqeeyay ama uu weynaado waxaa la yidhaahdaa dee waa uu daalay ama maaragtay uu nastay ama uu iska daayay adiga weli awoodii aad ku abuuri jirtay laxmadii miyaad leedahay miyaad se samaysaa laxmay ilaa imaka waaba sii siyaadayo shaqadii beriga hore aan ku jiray waa cilmi soo maaha iyadii baan intii dagaalada socdeen aan dib ugu noqon jiray oo halkaas saasaan waa u samayn jirtay saas sidaana kama saarana aniga xisaab kale yani meesha dadku ay dagaal ka sheekeeyaan iyo qabiil iyo oo haddaan qoloyin wada fadhino anigu taasaan ku xisaabtan waayahay marka haddaaban ugu cadcadtahay waaban leeyahay fadhigo waa noole fadhi kama qabto marka hees ama ruwaayad la soo saaro badi waxaa aad loogu bartaa dadka jilaya iyo fanaaniinta heesaha qaadaya sababtu waxay tahay dadku waxay arkaan cidda hor istaagaysa ama u qaadaysa ama u jilaysa waxaase fanku uu ku dhisan yahay tiirar badan oo midna aan laga maarmayn ku midhaha abuuraya ku laxanka saaraya iyo kuwo badan oo muusiga u tumaya miduun buu ka yahay markaasi fanaanka codkiisa ku qaadaya tusaale ahaan haddii lagu shido heesta garba garh baa la tusaa waxaad markaba aqoonsanaysaa fanaaniinta codka macaan ee kale ah xasan aadan samatar iyo sahre axmed jaamac dadka qaar suugaanta daneeya ayaa laga yaabaa inay sidoo kale gartaan erayada inuu lahaa abwaan xasan xaaji cabdilaahi xasan ganay waa hees si macaan uu u dhisan yahay muusigeedu iyo laxankeeduba haddaba haba dambeeyaan kooxda qalabka tumaysa ee waxaa adag in la garto cidda habka heesta loo qaadayo ama laxanka dhistay heestan uun maaha ee heesaha dhammaanba cidda qaadaysa uunbaa lagu suntaa heeskan aan soo hadal qaadnayna waxa uu ka mid yahay heesaha uu laxamiyey xasan gareydh kuwa kale ee uu laxankooda leeyahayna waxaa ka mid a sida canabka beeraha kowde waayahay horumardadan laba dheer midna waa qaadan magool iyo isagaa qaada kuluc iyo magool midna waxaa qaada kuluc oo keliya kuluyaa qaada waayahay marka magool iyo maxamedaan ku jiraayay jacaylkaana dhaawacay doof hees la yiraa maxamed axmed iyo magool rawaayadda sidaama isku qabna ayaga ku wada jireen iyo heestii sidaama isku qabnase waa qasanaa waayahay ninkii khayrkii loo xido adna soo qoyso qaado waan gartay siidmeerka duushaay oo xasan diiriye qaado waan gartay leebkii jacaylkay maryam usal qaato waan gartay hooyay la-aantahay uu qaado maxamed salaama waan kuu warramayaa naftaydaadii qalin la qaadayi waan gartay dilaahay jalam goraya cawl ku dar waa qaada axmed calaygaal iyo magool waayahay iyo taariikhu aabuu aad iyo magool iyo qaadaan axmed calaygaal waayahay gurbaawi baa lahaa erayada jibin hees la yidhaahdo maandeed qaato waayahay saa jacaylka un baan hadda ka soo qaadaynaa weyla kuwaasay inta badan dadku aad u dhegaystaan looli iganaylo laba goor tuskiiralay aad iyo yaa cabdinaasir sahre axmed jacaylkii barashada kasoo degayey iyo kii kale saddexaad ay wada qaadayeen sahre axmed jacayl waalani waa kana ku daro shekaro garba gar baa la tusaa ku dar
ما عندنا جاروة قالنا ودارينا وبدي أتقوتي أنا قالنا ولي قعلي قصيو ورمضان سقاي وبدي أتقوتي أنا قالنا ولي قعلي قصيو ورمضان سقاي مقوبة كان صوتا كأكحي قولنا أيها أمو قولنا أيها أمو يا روي قبله تمشي إيدها فين يا سيدة وياها قدر كيسة يا شقائي يا سيدة وياها قدر كيسة يا شقائي نفسي مالكو كيتي قهارا نفسي مالكو كيتي قهارا حيكو كورا وذان بالتعب iyo aashaqaha kumaystaha ku hoosira garba la tusaaye gacalkood miyuu nacayey miyuu nacayey iyo aashaqaha kumaystaha ku hoosira garba la tusaaye gacalkood miyuu nacayey miyuu nacayey لجيجي بصراوي يجوي سيديا كوكو ديو نافكي قدلايو لجيجي بصراوي qofka mulaxanka ah sida Xasan Grade marka uu hees la xamilayo waxa uu muuqurtaa mawjad khiyaala ama sawir maskaxeed halkaasi oo ah meesha uu ka baarayo kana soo dhex saarayo codkii ama laxankii ay yeelan lahayd heesta uu laxanka u saameynaya bal imise heesooda ayaa jira oo Soomaali ah mulaxanka hees saaraya laxan cusub waxa laga rabaa hab loo qaado heeskaas oo ka duwan oo aan meel la uga ekayn inta hees weligeed jirtay ee hore loo sameeyay Soomaali Suudaani Zimbabwe cidii doonta ee bulshada adduunka kamidiba ha qaadee maaha markaa hawl yar haddaba wadacayinkeeya ayuu Xasan Grade ama qofka mulaxanka ahi u maraa raadinta iyo samaynta laxan cusub horta marka hore waxa wata erayada waxay wataan dareen haye waxay sheegayaan dabcan waxay sheegayeen inaad fahamto horta ujeedada laga leeyahay hadday tiiraanyo tahay hadday farxad tahay hadday madluum tahay yani waxyaabahaas raacaysa marka dee anigu qalabkaan ku sameeyaaye afka kama sameeyo waan gartay marka halkaan meesha ku yaalla
ayaan maarag ku kala waxaya waan gartay qaadanaysaa abaar baad carruursanaysaa hawadaad gelaysaa waad ka keenaysaa marka harkaan kabanka ku yaala ayaa kala duwaya kolba meel 7 maxadadood buu leeyahay oo kanaal waan gartay kolba mid baad aadaysaa waayahay si aad shalay ka samaysa waa ka lacanaysaa mid cusub baad maanta aadaysaa waayahay marka iyagun baad ku dhex wareegaysaa midda kale dhaqan baan leenahay dawlad baan leenahay waa badan yihiin heeseena balaawidka oo anagu dhaqan u leenahay baa jira marka halkaana waad kala soo dhaadhacaysaa xasanow markaad wax la xaminaysaan muuqaal ahaan waxaa la dhahdaa way isla maqan yihiin idinku sidaas maad dareentaan qofku inuu baxsan yahay oo dadku aan waxba ka oqoonin in wax samaynta dad waalan baabay noo haystaan waa tahay maxaa ficilada la yaabayaan maxaa kamid a ficilada waxaa la yaabayaan xilkuu eegayaa dhulkoogu dharbaaxayaa hadduu doono xilkuu eegayaa dhaleelou eegayaa fadhigii baa ka cun xabad sigaara intuu doonanayo marka adigu waa nin dhiban un maaragtay waa ku raadinayo doonaya waxaan uu soo saaro in dadku ay dhegaystaan oy qasab ku noqoto inuu qofkaan uu dhegaysto waxaan meesha ku jira uusan ka tegin dareenka qofkaas inaad qaadato oo codkaasi qaato marka la isbarbar dhigo heesaha wakhtiyadan dambe fanaaniintu ay soo saaraan iyo kuwii waayadii hore waxa uu dhaliilay xasan heesaha iminka dhalinyaradu ay soo saaraan taana waxa uu uga sabab dhigay laxanka heesta oo aan muhiimad la siinin qofka laxanka saarayaa ama samaynayaana aanu wakhti gelin ee uu boobsiiyo marka bahaaladuna waxa weeye sideedaba fanku waa guurto iyo maguurto ahdiya guurto waxa weeye hees music qarbiya lagu daray xagga loogu daray oo maalintaa keliya aan dhaafay madiinada waa lixdankii tii la sameeya tii maanta la sameeyey ka macaan guuri mayso mar walba waa laga sii jeclaysanaya maxaa kala duwaya guurtada iyo maguurtada waxaa kala duwaya dareenkaaga kala duwaya sababtu waxa weeye waa lalahay aan orodne na ordisiiya daantaa rogan taa keenaysa iyo cod baan sameeya cod aan sameynta kaala okay waa hees sababtuma marka maxaa ka dhiman baa la odhan karaa dadka laxmadoodu ay cimrigoogu gaaban yahay inay dareen sameeyaan oo jacayl la yidhaahdo horta waa inuu jacaylka fanka ku jiraa adiga ood jecesha wax la jeclaadaa kaa soo baxayo